Assalaamu calaykum daawadayaal halkani waa Hagaagta TV kusoo dhawaada qodobada wararkayga maalinimo ugu doorka roonle. Awaar reer Hargeysa oo ka baxsaday xabsi uu ku xidhnaa wafdi ka tagay Kismaayo oo huleele Ceelwaaq ammaanka Muqdisho oo laga dayrinayo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo loo diiday inuu sharaxo. Daawadayaal intaasi waa qodobada wararkayga ugu doorka roonle. U diyaar garooba qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Fadlan daawade haddii aad tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channelka fadlan daawade subscribe saar channelka like saar si aan u gaarno meel fog share la wadaag saaxiibadaada u baahan wararka noocan si ay kula soo daawadaan. Saciid Maxamuud Gahayd Hargeysa oo safar sharci darro ku xidhnaa xabsi ku yaala Hargeysa ayaa ka baxsaday xabsigaasi naftana ku leeyahay magaalada Garowe maamul goboleedka Puntland. Abwaan Hargeysa lama ogeyn goorta uu ka baxsaday xabsigaasi balse waxa loo aaneynayaa inuu ka baxsaday maalmihii shaqaaqadu ka dhacday xabsiga weyn ee Hargeysa. Abwaan Hargeysa uu ahaa qoraaqoli jiray manhajada Soomaaliya ahaana qorayaasha Hema Book sida la xaqiijiyay. Abwaanku waxa uu ahaa samafale caan ka ah geyiga Soomaalidu degto sida wararka qaar sheegayaan. Abwaanka Hargeysa waxa uu xidhnaa isla markaasna eedeeyay nin golaha wakiilada ka ahaa madax dhaqameed Somaliland qoraana ahaa laguna magacaabay Axmed balse lama cadeynin sababtu abwaanka u xidhay Axmed. Abwaan Hargeysa xarigiisa dawladda kama hadal ana ogeyn goorta uu ka baxsaday xabsigaasi. Abwaan Hargeysa hase yeeshee Hargeysa oo ku sugan magaalada Garowe ma dhaafi doono Garowe oo Muqdisho ma gaari doono. Magaalada Kismaayo waxa maanta tagay wafdi sare oo ka socda maamulka Jubaland kuwaasi oo tagay magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gado halkaasi oo la doonayay in lagu qabto doorashada 16 kursi ee jaalay magaalada Garbahaal ee 14 bisha lagu wareejiyay. Xubnahan oo isugu jira wasiirka arrimaha gudaha Jubaland, saraakiil ka tirsan ciidamada daraawiishta, nabad sugidda iyo xubno ka socda madaxtooyada ayaa u kuurgalay sidii ay u qiimeyn lahaayeen goobaha loo qorsheeyay in lagu qabto doorashada iyadoo xubnahaasi ay la kulmi doonaan maamulka degmada, saraakiisha ammaanka, odayaasha dhaqanka iyo haweenka waxayna kala hadli doonaan sidii looga wada shaqeyn lahaa in ammaanka doorashadu u qabsoonto. Dowladda Imaaraadka ayaa diiday musharaxnimada madaxweynenimo ee Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Dani ahna madaxweynaha maamul goboleedka Puntland inuu madaxweyne ka noqdo Soomaaliya inkastoo madaxweyne Dani haystay in ka badan 40 xildhibaan hase yeeshee way diideen Imaaraadku inay ka caawiso dhaqaalaha doorashada uu ku galayo Dani. Saciid Dani oo Imaaraadka ka helay fariin degdeg ah oo aan filaynin ayaa degayaan qorshaha labaad oo wafdi ka socda Puntland u diray magaalada London ee wadanka boqortooyada Ingiriiska si ay uga caawiso dhaqaalaha ku baxaya doorashada. Wafdigaasi hordhac u ahaa safarkii uu ka tagay Dani magaalada London ee UK iyadoo maanay la filaynin inuu ka soo laabto magaalada Garowe kadib safarkii uu ku maqnaa Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ayaa maanta ka soo laaban doona Garowe. Intaasi daawadayaal waxaan ku soo gabagabeynaynaa wararkii Hagaagta TV tan iyo kulan dambe nabadgelyo.